anigu waxaan ka soo horjeedaa oon diidanahay fikradaha sheegaya inuu aqoonsigu uu ka miisaan culus yahay dhulka iyo khayraadkiisa. walaa talbasu alxaqa bilbaatil wataktumuuna alxaqa waantum taclamuun. waxaan hadal gaaban kaga hadlayaa heshiiska isafgaradka ay yeesheen ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha Somaliland in dhulxeebeed qiyaastiisu dhan tahay 20 kilomitir muddadiisuna tahay 50 sano oo buuxda ay yeeshaan. goobta laga siinayana sida uu sheegay afhayeenka amniga dowladda Itoobiya ay tahay deegaanada lagu haya. anigoo gudanaya waajibka ay bulshada iyo waddankuba igu leeyihiin caddaynayana mowqifkayga shakhsiyeed waxaan sheegayaa in heshiiskaasi uu ahaa midaan loo meeldayin, midaan la darsin oo lagu degdegay, midaan la miisaamin dhibka iyo dheeftiisa, midaan lagu ilaalin taariikhdii ay ummadani lahayd, midaan lagaga tashan falcelinta ka imanaysa bulshada deegaanadaasi degan. haddaan u imaado aqoonsigu waxa uu leeyahay sifooyin sharci oo loo maro oo caalamkana ka jira. sifooyinkaasi oo loo maro ayaa 100% ka wanaagsan sidan aynu maanta inagu wadno. inaad qayb dhulkaaga ka mid ah aad aqoonsigu aad weydaarsato maaha mid caqligu yeelayo. waxaa jira wadamo adduunyadani sumcad weyn ku leh, dhaqaale ahaan iyo wax soo saarna ku jira kaalimo aad iyo aad u wanaagsan. tusaalahan noolna uu yahay dalka Taiwan oo inala jooga, sidoo kale waddanka Kosovo oo ku dhowaad 140 dowladood diblomaasiyan ay aqoonsan yihiin, balse ilaa hadda raadinaya aqoonsiga buuxda inuu helo oo noqdo waddan la aqoonsan yahay. marka ay 140 dowladeed oo diblomaasiyan ku aqoonsan ay keeni waayeen aqoonsiga buuxa, sida ay macquul u noqonayso in qayb dhulkaaga ka mid ah aad ku doorsato aqoonsiga hal dowladeed, iyada laftirkeedu maaha mid caqli ku qaadan karaya. shakhsiyan anigu waxaan ka soo horjeedaa oon diidanahay fikradaha sheegaya inuu aqoonsigu uu ka miisaan culus yahay dhulka iyo khayraadkiisa.